Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wiilkan Saciid ibnu Caamir al-Jumaxi waxa uu ka mid ahaa kumanaan dad ah oo ay isugu yeedheen madaxdii Quraysheed, kuwaas oo isugu soo baxay goob Tanciim la odhan jiray oo ku taallay magaalada Maka duleedkeeda si ay u soo daawadaan dilka Khubayb ibnu Cadiy oo ahaa mid ka mid ah asxaabtii Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam oo la soo qafaashay. Dhallinyaronimadiisii ayaa u suurtagelisay inuu ka dhex siibto dadkii ilaa uu ku dhowaaday halkay taagnaayeen madaxdii Quraysheed sida Abu Sufyaan ibnu Xarb, Safwaan ibnu Umaya iyo ciddii kale ee hoggaanka ahayd. Arrinkaasina waxa uu u sahlay inuu indhihiisa ku arko maxbuuskii Quraysh oo ay xadhka ku xidhxidhan yihiin, dumarka iyo carruurtuna ay hore ugu soo tukanayaan oo ugu soo riixayaan madasha dilka si ay uga aargutaan Muxamed sallallahu calayhi wasallam, uguna aargudaan dadkii Badar lagaga laayay. Markii dadkii tirada badnaa ay gaadhsiiyeen maxbuuskoodii meeshii loo sii diyaariyey in lagu dilo, wiilkan Saciid ahi waxa uu si qumaati ah isu dul taagay Khubayb oo la duldhigayo bir teedsan. Waxa uuna codkiisii degganaa ka dhex maqlayay orta dumarka iyo carruurta, isagoo leh, "Ii oggolaada inaan 2 ragcadood tukado inta aydaan i dilin ka hor." Wayna u oggolaadeen. Waxa uuna arkayay isaga oo u jeedsanaya qiblada, tukanayana 2 ragcadood oo quruxdooda iyo dhammaystirnaantooda aanad malaysan karin. Waxa kale oo uu arkayay isaga oo abbaaraya dhankii madaxdii Quraysheed, kuna odhanaya, "Ilaahay baan ku dhaartee, haddii aydaan u malayn lahayn inaan salaadda u dheereeyey baqe aan ka baqaya geerida, waan badsan lahaa salaadda." Waxa kale oo uu daawanayay iyaga oo u jarjaraya Khubayb xubin xubin, isaga oo nool, kuna odhanaya, "Ma jeclaan lahayd in Muxamed halkaaga ku jiri lahaa, adna aad badbaadi lahayd?" Isna uu odhanayo, isagoo dhiigga shalaqsanaya, "Ilaahay baan ku dhaartee ma jecli, aniga oo nabad qaba, ehelkaygii iyo ubadkaygiina dhex jooga, in Muxamed sallallahu calayhi wasallam qodax lagu mudo." Dabadeed dadku ay gamcahooda cirka u taagayaan kuna dhawaaqayaan, "Dila! Dila!" Waxa kale oo uu arkay Saciid ibnu Caamir Khubayb oo indhihiisa xagga samada u jeedinaya oo leh, "Ilaahayow gaalada tirtira ahaan oo gebi ahaan laa, midhna ha kaga tegin." Kadibna neefsanaya neef qaadashadiisii u dambaysay, kuna yaallaan dhaawacyo aan la tirin karin oo seef iyo waranba lehi. Qurayshi Maka ayay ku soo noqotay iyadoo iskaba ilowday jarjariddii iyo dilkii Khubayb, balse wiilkii yaraa ee Saciid ibnu Caamir al-Jumaxi ilbiriqsina Khubayb qalbigiisa kama bixin. Riyadiisa ayuu ku arki jiray, sidoo kale mala-awaalkiisa ayuu ku arki jiray isaga oo soo jeeda, waxaana hor iman jiray isaga oo tukanaya ragcadihii degganaa ee xasilloonida badnaa ee uu ku tukanayay goobtii lagu dilayay, iyo isaga oo maqlaya reenkiisii markii naftu ka gurmaysay iyo markii uu habaarayay Quraysh. Dabeed waxa uu ka biqi jiray inay balaayo ku habsato amaba dhagax samada kaga soo dhaco. Khubaybna waxa uu baray Saciid wax aanu hore u ogayn. Waxa uu baray in nolosha dhabta ahi tahay caqiido, iyo in loo dagaalamo caqiidada ilaa geerida. Waxa kale oo uu baray in iimaanka xeesha dheeri la yaabyo dhaliyo, lama furaanno ama mucjisooyinna sameeyo. Arrin kale oo uu barayna wuu jiraa, oo waa in ninkan ay asxaabtiisu ilaa heerkaa jecel yihiin aanu ahayn nebi samada laga xoojinayo mooye cid kale. Intaa kadib, Ilaahay ayaa Saciid ibnu Caamir laabtiisa islaamka u furay, wuxuuna dhex istaagay koox dad ah, kagana dhawaaqay inuu
beri ama nadiif ka yahay dembiyadii Quraysh iyo gafafkoodii, iyo inuu ka dhex baxay sanamyadeedii iyo waxay caabudi jireen, galayna diinta Islaamka. Waxa uuna Saciid ibnu Caamir u hijrooday Madiina, nebigana sallallahu calayhi wasallam la joogay, kalena qayb qaatay Khaybar iyo duulaannadii ka dambeeyeyba. Markii nebigu sallallahu calayhi wasallam dhanka Rabbigii u hayaamay, isaga oo raalli ka ah Saciid, waxa uu sii ahaaday seef bilaagal ah waxa uu u sii ahaaday seef bilaagal ah labadiisii khaliif ee Abubakar iyo Cumar radiyallaahu canhumaa. Waxa uuna noolaa isaga oo tusaale nool u ah qofka mu'minka ah ee adduunyadiisa ku iibsaday aakhiro. Jacaylkii uu u qabay raalli ahaanshaha Ilaahayna ay saamayn togan ku yeelatay doonistiisii iyo wixii uu jidhkiisu jeclaysanayay. Mowduucani waa qayb ka mid ah kitaabka taxanaha ah ee Suwarun min xayaati saxaaba, oo aynu ku dadaali doonno in inta Ramadaanta insha Allahu tacaala aynu qaadanno qaybo ka mid ah qisooyinkiisa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.